Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan. Waxaan Ilaahay ugu baryayaa in Ilaahay ku ammaansado meel walba oo joogaan. Waxaan sidoo kale Ilaahay ka baryayaa in waddankeena uu inoo hagaajiyo oo madaxdeennana baggooda burcad isu mariyo. Waxaan sidoo kale Ilaahay ka baryayaa in waddankeena doorasho wanaagsan ka rido, xor iyo xalaal ah, kii ummadda wax u qabanayo Ilaahay inuu inoo soo bixiyo ayaan ka rajaynayaa. Haddaan arrintaa ka gudbo, waxaan rabaa inaan la hadlo ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roblow, waddankan idinka ayaa madax ka ah inaad isku fahantaan sidaad horeyba iskugu fahanteen meesha waddanka loo wado inaad isku fahantaan baa muhiim ah, shacabkana wuu ku dagayaa. Balse waxaan si toos ula hadlayaa ra'iisul wasaare Roble. Ra'iisul wasaare Roblow, horta aan ku xasuusiyo, haddaan dib kuu celiyo, waxaa lagu keenay waddankii oo xilli kala guur ah ku jiro. Waddankii oo ra'iisul wasaarihii 3 sano iyo bar waday laga qaaday oo ma aragtay loo baahan yahay ra'iisul wasaare doorasho qabto oo waddanka wixii ka dhinaa dhammaystiro. Horta ulijeedada lagu keenay waxay ahayd intaasay ahayd. Ragga libintiis waa la qiraa. Maanta ma ahi qof aan libintaada qiraynin aan sheegaynin waxaad qabatay. Waan sheegnaa maalin kasta waxaad qabatay, balse waxaad qabatay haddaad si xun ugu soo gabagabayso ama cimri taga haddaad ceeb ku sagootiso, waxyaalahaadii hore waa la iloobayaa. Waxaan ku leeyahay caqliga Ilaahay kuu soo celiyo, waxaad ku kacday iyo meesha aad aaday lagama jiro soo laabo. Madaxweyne Farmaajo iyo adi maba isqaban kartaanba. Waa madaxweynahaada, waa madaxweynahan, waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed. Haddaa isqabateen shalay asagaa ku keenay, waxaa la rabay inaad la fahanto markuu kaa celinayay waxyaabihii aad ku kacisay. Horta aan dib kuu xasuusiyo Roblow, dib kuu xasuusiyo wixii lagu diray iyo waxaad ku dhaqaaqday. Waxaa lagu diray doorasho, waxaad ka bixi wayday safarro Kenya tagtay, madaxweynaha wuxuu ku dhahaa tagtay. Waxaad soo samaysay Allahu aclam, Ilaahay uma og. Soo laabatay, waa sii dhaaftay. Masaraa ka dhacday, waad sii dhaaftay. Maamul goboleedyadii baa haddana waxaad isku dayday inaad u kaxayso Imaaraadka. Ood rabtaa in ay maamul goboleed oo yaangarsa Imaaraad ku wada. Horta tuhun fara badan ayaa ina galay maalmihii ugu dambeysay. Intaasaa maciin aba intaasaa fiicanba haddaan ku ekeen lahayd oo doorashada aadi lahayd wax bay ahaan lahayd. Maxaad samaysay arrin amniga qusaysa oo xasaasi ah
oo in la ruugo si fiican looga fikiro la rabo ayaad iska soo fariisay idaacad markaasaad wasiirkii nabad sugidda nisa aad u qabatay 48 saacadood 48 saacadood aad u qabatay wasiirkaas adigu ku hoos imaanayey adiga muxuu ahaa waa isla shaqaynaysay wasaaraddaadu ahaa si kale ayaad wax u weydiin kartay si kale ayaad u keeni kartay tuhun kale ayaad ummadda gelisay 48 saac ka hore ayuu kugu keenay akhbaar uu ku leeyahay guddiga amniga ha la iskugu yeero arrintaas caddaymihii ayaan soo bandhigaya bal maalmo la tiri waxba ma taraysa maadan ka sugin wasiirkii aad ka qaaday xilkii madaxweynihii ayaa kula hadlay nin kalaad u magacaawday haddana sharciyadeedani ma lahayn madaxweynaha kula hadlay waad ku gacan seerta waa lagu yeela madaxweynaha ayay u taallay waa laga qaaday waxaa loo dhiibay yaasiin farey waa nasiib darro marka inaad dhahdo ninkaan rabo ani inaan u dhiibo ha loo dhiibo horta taa nasiib darro weynayd madaxweynihii warka yaasiin farey u dhiibay muxuu ahaa warmurteedkii lasoo gudbiyey lasoo dhigay muxuu ahaa idaacadda waad ka saarta maxay ka ahayd markaa ma garanayo waxay ka ahayd garan maayo waxay ka ahayd arrintaa taa waa mid tan kale tag iyo bararaq inaad dhahday waxaad ka qaaday xundubey maxaa sababa tillaabada aad qaadayso adigu ma fahmaysid miya in lagu sii tuhmaayo xundubeyd ka qaada sabab xundubeyd oo kii kaala shaqaynaya amniga doorashada ma haye aad ka qaadide maad wax quman oo toosan oo la garanayo oo wanaagsan oo integrity leh maad ummadda u keentid 30 milyan aad keenta 30 milyan ma garanaysaa wuxuu ka qayb qaata maalin hore xamar way guban gaarta ilaahay baa ka badbaadiyey yaa ninkii hubeynayey dagaaladii miranaayo iyo shirkooli ka dhacayay soo asaga maaha waxa madaxweynaha aan u dhacna aan ka bixina meesha ku hayso asaga maaha sidee bay u cuntantaa qof noocaasna sidee loola shaqaynaya ma waalan tahay maxaa kaasi ah haye diidayba wixii oo dhan diidda yaa waxaa laga haya ninbaa waxaa laga hayaa maxaa hadda layga soo qabanaya nin baa lasoo qabtay waag inuu dhumayaa lasoo qabto markaasuu dhahay maxaa layga soo qabanayaa hadda beriyaan dhumi ama hadda dhawaanba dhumi maxaa layga soo qabana nin doqon buu ahaa micnaheeda adigu meel sii lagaa qabtaba maxaad meel kale u qabsataa hadal lagaala daal dadkii madaxda iga xigmad badnaa kula hadal nina meel u caddahay meelna ka madow aniga waan kula hadlaya dhegeyso waan kula hadlayaa niman yahow tixdooyinkan hadday idin soo gaarto ama gabayaha hadday idin soo gaaraan waa 2 gabay midna waxaa la dhahaa qallooc
midna waxaa la dhahaa duufsi. Labadaa gobayba bilaahi calaykum iyo gudbiya ha gaadho share garee subscribe gareeya dadka kale la wadaaga ha gaadho rooble inuu dareemaan rabaa ay gaadho gudbiya qoodii xerada gobayga saanuu leeyahay. intaan gobayga u galin ka hora eyga duureedka markuu duurka galo oo abaar ku dhacdo duftaa ka go'do wuu rafaadaa abaar haraad baa ku dhaco balse isma bedelo dabeecaddiisu waa siduu dadku u cunayey ama siduu hilibku cunayey ama sidii carnivorous animals uu ahaa ayuu yahay. marka gabaygan waxaa matalina sida kale eyga haddaad fiijiso uu hiraan hiri carabkuu la laadayaa haddaad ka hadhano sidii oo kale carabkuu la laadinaa. dhegeyso gabaygan. ey duurgala ah timo gufiyo way ka go'ayaane dabeecadduse kama guudho iyo go'jafkuu qabay. aqli xumada waa lagu ba'aa laguna oomaaye arli wada barwaaqiyo adoo amni wacan haysta oo masiyo kuleel lama degiyo meel abaar badane halka aar libaax jooga iyo aafta iyo duurka ishkantiyo idihiyo riyaha eyda gala daaye ubadkii la geeyow kol uun aayar cunayaaye ujeeddada haddaan kuu fasiro amase kuu muujo awowgood la naarkii dulmiga uurka wada buuxay ayaa kuu abtiriyey oo eenka kuu geystay. aday kugu socotaa rowlow dareen awowgood la naarkii dulmiga uurka wada buuxay ayaa kuu abtiriyey oo eenka kuu geystay. eenkan ee maanta ee welwelka ku haysta ayagaa kuu geysteen nimanka jaziirada fadhiya nimanka aljaziira hotel fadhiya jaziira hotel fadhiya ayaa kuu geystay arrinkaa. waxaa la rabay inaad ka weynaato balse ka weynaan weyday dhadhami. tanna waa duufsi duufsigaana madaxweynihii yaa yaabay markaas ayuu madaxweynaha waa laga dhaxalooya fikir baa dilay war waxaan aad keensatay muxuu ahaa khayraa la qaatay nin cadkiisa dhacsanayo ahaa khayraa la qaatay war dadka muxuu ahaa nin wanaagsan kuma jiro miyaa dadka saanuu leeyahay gabaygan. soomaalaay farmaajo calaacal baa ka bixihaayo soomaalaay dadkii waxaan ku nacay waa damiinnimo wuxuuba waa dufudo waalan aan doocna garanayne daawadiisu meeshuu ka heli dayiba maaye doqonnimo keliyuu u lumi ninkan soo doortay waa nin macaara duufsadeen da' ka dhaadhiciye waa nin la dagay niman ilaahay ka daday labadii daaroode waa nin dariiqada dalka dowladda caasiyaye waa nin sharciga soo dulmiyey iyo dowladnimada waa nin digniin aan ka qabin dalalka shisheeyaha waa nin darxumo kaaga iman deeqdi loo gale waa nin dugsaday niman dalaadaha ku qubi darajadoodii waa nin dad kale raacayo deerka dhaadhiciye waa ninkaa dibadduu baxee soo dabeyshaday waa nin qalbigu daciif yahee doorsanoo falane waa nin dagaalkii shisheeye
igu dur xulaye waa nin aan lala doonahayn darajo iyo liibaane waa nin habaar loo dujiyey duco ka baydhaaye waa ninkaa dugsaday daalimiin lagu hurshaa dab iyo naar baaruude waa nin dugsaday niman dad iyo maal ilaah dab ka soo siiyey waa ninkaa dacaygii ku jaray doorashadiiye waa nin aan sidii dumar haween laga danaystaaye waa nin dugsaday nimanka doobiga noqdee tuut xamaalkaah waa ninkaa dugsaday nimanka dalkooda gadan doog iyo abaare waa niman digniin aan ka qabo duq iyo waayele marka rooblow waxaan ku leeyahay caqliga ilaahay ha kuu soo celiyo war saan isu dhaan nin mustaqbal iska dhig oo soo laabo rooblow soo laabo oo nin mustaqbal iska dhig oo saan isu dhaan oo wixii lagu dirsaday qabo ha ku mashquulin waxyaabaan lagu dirsanin rooblow farta ayaa kuuga godan kaa aamin baxnay waxaad rabta la garan waa walaalo ra-iisul wasaarow soo laabo haddii kale iscasil dhig xilka iska dhig qol ayaa jirto waddanka ilaahay ayuu qabaa ilaahay ayuu leeyahay waddankan qof allaalo qofkii fashilo ilaahay ayaa u jooga waddankan iska dhig mid kale aan dooranay waa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu